Saamaynta ilmaha ee smartphones. Smartphones waxay noqdeen qayb muhiim ka ah nolosha casriga, xitaa carruurta yaryar ayaa si joogto ah u isticmaala. Inkastoo ay leeyihiin faa'iidooyin badan oo waxbarasho iyo isgaarsiin, haddana isticmaalka xad-dhaafka ah wuxuu leeyahay saamayn taban oo ku wajahan maskaxda, jidhka iyo akhlaaqda ilmaha. Saamaynta togan. Kororka barashada iyo helitaanka macluumaadka. Barnaamijyada waxbarasho waxay kor u qaadaan aqoonta, eray bixinta iyo xirfadaha xisaabta. 2. Xirfadaha teknoolojiyadda. Ilmaha wuxuu bartaa sida loogu shaqeeyo aaladaha casriga ah, taas oo ka qayb qaadata mustaqbalkiisa. 3. Isgaarsiinta iyo xiriirka qoyska. Waxay ka caawisaa carruurta inay la xiriiraan waalidka iyo qaraabada meel kasta oo ay joogaan. Saamaynta tabanka ah. Saamaynta maskaxda iyo nafsiyeedka. Hoos u dhaca diiradda iyo awoodda waxbarasho. Walwal, hurdo la'aan iyo xanaaq degdeg. Khatar ku saabsan ku xirnaanshaha iyo balwadda telefoonka. Saamaynta jidheed. Aragga oo daciifa sababtoo ah shaashad u dhow. Dhibaatooyinka lafaha qoorta iyo dhabarka. Miisaan korodh sababtoo ah dhaqdhaqaaq la'aan. Saamaynta akhlaaqda iyo isku dhexgalka bulshada. Carruurtu waxay ku daydaan waxa ay ku arkaan kicin ama rabshado. Xirfadaha bulshada oo hoos u dhaca. Carruurtu waxay door bidaan keligood fadhashada. Khatar ka imaan karta waxyaabaha aan ku habboonayn dadooda. Maxaa sababa saamayntan? Isticmaal aan xad lahayn oo aan la xakamayn. La'aanta xeerar waalidnimo iyo wacyigelin. Abbisyo loo sameeyey soo jiidasho aad u sarreeya dopamine triggers. Talada khubarada caafimaadka. Da'da ilmaha iyo wakhtiga ugu badan ee shaashada. Ilmaha ka yar 2 sano. Aan loo ogolaan marka laga reebo wicitaan qoyska. Ilmaha jira 2 ilaa 5 sano in aan loo ogolaan in ka badan 1 saac maalintii oo kormeer leh. Ilmaha 6 sano jira waa in loo sameeyaa heer cad oo wakhti iyo ujeeddo leh. Gunaanad. Smartphones waxay carruurta u keenaan fursado badan oo aqooneed. Si kastaba, isticmaal aan la xakamayn wuxuu sababi karaa dhibaatooyin caafimaad, nafsi iyo dhaqan. Waalidku waa in ay sameeyaan xeerar iyo ilaalin joogto ah si ilmaha uga faa'iideeyo teknoolojiyadda si caafimaad iyo mas'uuliyad leh.